dowladda Kenya ayaana wax taageero u muujin madaxweynaha cusub ee dowladda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaas oo dhawaan lagu doortay kadib doorasho ka dhacday magaalada Muqdisho. Kenya ayaana ka mid ahayn dowladaha la filayo inay madaxda sare u soo diraan calaamasaarka madaxweyne Farmaajo oo ka dhici doonta Muqdisho 22 bisha. si kastaba wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa sheegay in dowladda Kenya aysan kaliya nacbayn mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay sidoo kale cadaawad u hayso beesha uu ka soo jeeday ee Sida Mareexaan. Kenya ayaa beesha Mareexaan ku haysatay inay dhabar jibiyeen ciidamada Kenya kadib weerar xoogan oo kaga yimid dhinaca Al-Shabaab deegaanka Ceelcadde ee gobolka Gado. qabiilka Mareexaan waxay ciidamada militariga Kenya kala shaqeynayeen sidii ay isaga caabi lahaayeen qabiilada kale ee deegaanada ku soo duulay, laakiin waa ay naqayaameen sida waxa xilli hore sheegay sarkaal ka tirsan madaxtooyada waddanka Kenya. sidoo kale saraakiisha militariga Kenya ee ka tirsan ciidamada AMISOM kuna sugan gobolka Gado ayaa si cad ugu sheegay odayaasha beesha Mareexaan inay kalsoonidii kala laabteen maadaama ay ka qayb qaadan waayeen sida ay hadal ku dhigaan dagaalada Al-Shabaab lagula jiro. si kastaba madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wajahaya siyaasad xoogan oo kaga imaanaysa dowladaha dariska oo ugu horeeyaan dowladaha Kenya iyo Ethiopia, waxaana isha lagu hayaa sidii uu siyaasadaha isaga difaaci lahaa.